tobanka baxsad ama dambiile ee FBI-da Mareykanka baadigoobayso. Liiskan ayaa lagu shaaciyay bogga rasmiga ee FBI-da Mareykanka ah. Nambarka koowaad waxaa ku jira dambiilaha lagu magacaabo Alexis Flores. Waxaa la sheegaa inuu dhashay July 18, 1975 waddanka Honduras. FBI-da Mareykanka ayaa bixinaysa lacag gaaraysa ilaa $100,000 Mareykanka ah ciddii soo sheegta macluumaad ku saabsan Alexis Flores. Alexis Flores ayaa loo raadinayaa ku lug lahaanshiyaha afduub iyo dilka gabar 5 sano jir ah oo lagu dilay magaalada Philadelphia dabayaaqadii sanadii buu ku ahaa 2000. Nambarka labaad waxaa ku jira Jose Rodolfo Villarreal Hernandez, kaasoo lagu naanaysi jiray El Gato, midka oo aad iyo aad caan ugu ahaa waddanka Mexico. waxa uu dhashay January 16, 1978 wuxuuna ku dhashay waddanka Mexico. waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxay yaboohaysaa lacag gaaraysa ilaa $1 milyan Mareykanka ah qofkii sheegta ama qofkii soo sheega macluumaad la xiriira Jose. Jose waa nin baxsad ah oo ka ganacsada daroogada Mexico, waxaana lagu daray 10 ruux ee baxsadka ay Mareykanka doondoonayso. bishii Oktoobar 13, 2020 ayaa si rasmi ah loogu shaaciyay bogga rasmiga ee FBI-da Mareykanka ah. Jose ayaa loo raadinayaa inuu abaabulay dilkii Juan Jesus Guerrero Chapa oo laga fuliyay South Salt, Texas, May 22, 2013. waxaa sidoo kale rumaysan yahay inuu mas'uul ka ahaa dilal badan oo ka dhacay dalka Mexico. Jose Villarreal Hernandez wuxuu ahaa baxsadkii 524 ee lagu daro liiska FBI-da Mareykanka ee 10leyda ah. Nambarka saddexaad waa ninka loo yaqaan Eugene Balmer. Eugene Balmer waxa uu ku dhashay New York ee waddanka Mareykanka ah sanadka markii uu ahaa 1939 4 Abriil. Eugene Balmer waa baxsade Mareykan ah. waxaa lagu daray 10 nin ee FBI-da aad ku doondoonayso. Balmer waxaa loo raadinayaa eedeymo la xiriira inuu toogasho ku dilay gabar uu sadaq u yahay, taasoo lagu magacaabi jiray Tammy Balmer. taariikhda markii ahayd 24 Sebtembar 2012 waxa uu ku toogtay Stony Point ee New York. Balmer wuxuu ahaa baxsadkii 523 ee lagu daro 10kii baxsada FBI-da Mareykanka ay doondoonayso. FBI-da Mareykanka ayaa dul dhigtay Balmer lacag gaaraysa $100,000 Mareykanka ah ciddii keenta macluumaad horseedi kara ama macluumaad keeni kara in lagu soo qabto Balmer. dambiilaha afraad ama baxsadka afraad waa Rafael Caro Quintero. wuxuu dhashay Oktoobar 3, 1952 waxaana lagu naanaysaa sayidka daroogada ee reer Mexico. waa milkiilaha shirkadda hadda burbursan ee loo yaqaano Guadalajara Cartel. markii uu sameeyay Guadalajara Cartel sanadihii 1970-meeyadii, Caro Quintero wuxuu la shaqeeyay shakhsiyaad caan ku ahaa daroogada sida Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo iyo Pedro Alves Perez, iyagoo tubaakada loo yaqaan marijuana aad u tiro badan u gudbiyay dalka Mareykanka kana timid Mexico. sidoo kale waa aasaasaha iyo hogaamiyaha cusub ee hadda lagu shaqsan yahay kaaboorka Cartel ee saldhiggiisu yahay Sonora ee dalka Mexico. dambiilaha shanaad waa Robert William Fisher. Robert wuxuu dhashay 13 Abriil 1961 waxa uu ku dhashay magaalada Brooklyn ee New York. Robert William Fisher ayaa loo raadinayaa eedeymo la xiriira inuu dilay xaaskiisa iyo 2 carruur oo yaryar ah, kadibna uu ku qarxiyay guriga ay ku wada noolaayeen magaalada Arizona ee waddanka Mareykanka. Robert waa baxsadkii 470 ee lagu qoray liiska baxsadka ee FBI-da Mareykanka ay raadinayso bishii June ee 2002. Robert waxaa iska dhalay William Fisher oo bankiga shaqayn jiray iyo John Howell. waxaan jeclahay muuqaalkeena qaybta hore in halkan aan ku soo gabagabeeyo. fadlan la soco qaybta labaad insha Allah.